waxaa duleedka galbeed ee magaalada Cerigabo si ballaaran loogu soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi ayna ku wehelinayaan xildhibaano ka mid ah golaha baarlamaanka Soomaaliland waxaana duleedka galbeed ee magaalada Cerigabo wafdidan si ballaaran ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah maamulka heer gobol heer degmo madax dhaqameed cuqaal iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada degmada Cerigabo wasiirku wuxuu noo wadaa inuu mashaariic badan oo degmada Cerigabo ka hirgalay oo xadhiga ka jaro kuwa kalena uu degmada Ceelifeyn iyo Garadag qaarna xadhiga ka furo qaarna uu dhagax dhigo runtii intii wasiirku joogay wasaaradda waa waqtiga u badnayd ee sanaag wax badan laga qabtay wasiir waxaan ku leeyahay waad ku mahadsantahay waxaan ku leeyahay saacadka wasiir soo dhawow ku soo dhawow magaalada madaxda gobolka Sanaag Cerigabo iyo dadkaagii aad aragto salaadiintii guurtidii cuqaashii waxgaradkii dhallinyaradii haweenkii saxaafaddii kuwooda waxay ku soo dhaweynayaan qalbi furan iyo niyad furan minankaagii waaye gobolkaagii degmadaadii oo caqli fayow iyo caafimaad qaba roobkun baa nagu yeeray sida kaloo dhan waa ladanahay isagana adaa noogu ducayn doona insha allah waxna waa hadeer waxna waa hadhow hadeerde waxaynu soo dhaweyntii un baynu iftiiminaynaa wasiirkii caafimaadka Dr. Xasan Gaafadhi waxaanu leenahay ku soo dhawow gobolkaagii degmada Cerigabo waxaanu ku leenahay welcome to Sanaag to Cerigabo oo gobolkii aweeyaasha wasiirkii caafimaadka Xasan Maxamed Cali waxaanu ku leenahay wasiir ku soo dhawow gobolkaagii degmadaadii waqti badan waa ku sugayeen howl badan kale waa wadaa Xasan Maxamed Cali Gaafadhi waxaanu leenahay mudane wasiir soo dhawow waxa timi gobolkaagii iyo magaalo madaxdaadii Cerigabo ku soo dhawow waxaanu leenahay wasiir ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow gaar ahaan degmada Cerigabo dhammaystiran oo aan kala maqnayn baa ku soo dhaweynaysa waxa ku leedahay gacmo furan ku soo dhawow waxaan ka codsanaynaa inaad waqti la siiso oo noo joogto si aan anaguna uga boganno gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa Xasan Gaafadhi iyo niyadsan iyo qalbi furan ku soo dhawow baanu leenahay ku soo dhawow waxaan ku leenahay ku soo dhawow gobolkaagii waxa ku soo dhaweynaya gobolkii oo dhan waxa ku soo dhaweynaya gobolkii oo isku duuban waxa ku soo dhaweynaya waxyihii dawladda oo dhan adaba aad tahay wasiirkii gobolka aad tahay aad iyo aad bay ku soo dhaweynaynaynaa gobolkaagii aad u dhalatay iyo dadkaagii dhinac walba gobolkii oo dhan ku dhan yihiin si fiican baa lagu soo dhaweeyay labaatan waa lagu sugayay hadeerna waa lagu sugayaa socodka loo dheeraado halkan ay guleynaa ma jiree cid maamul oo ka maqan haday tahay xukuumaddii iyo haday tahay guurtidii waayeelkii nooc kasta ahaatee waa ku jooga wasaaradda aad iyo aad bay imika u wanaagsan tahay mar waa jirtaan waxba ka garaweyne laakiin maanta waa wasaarad aad u shaqaynaysa niman dhallinyaro oo fiican shaqada diyaar u ah halkaas saluugi mayno aad baanu ku soo dhaweynaynaa furan baanu kugu soo dhaweynaynaa gobol Sanaag oo dhan baa diyaar ku ah ballaaran baan soo dhaweynaynaa wasiirkaas wasiir u dhashay magaalada gobolka Sanaag maanta hawlo badan u sida wax hore u keenay xildhibaanada iyo suduwaha agaasimaha guud inta dhamaantiiba wada soo dhaweynaa insha Allah taala waxaanu leenahay waxaad qabatay iyo waxaad qaban doonto waa laga warramay waxaad qabatana waa laga warramay wasiirku wuxuu caynaano ku leeyahay dadka qaniin maaha Xasan Gaafadhi shaqadiisu waa ninka adag ilaa maanta labadii waxa loo taagnaa soo dhaweyntiina si ballaaran ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina wasiirku waa wasiir qiimo badan waa wasiir experience muddo dheer u soo shaqeynay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay wasiir ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad marka waxaanu leenahay soo dhawow wasiir Cerigabo sida waxay ku qabtay ku sheegtay gobolkii ma kala hadhin degmadii ma kala hadhin dadweynaha ma kala hadhin jirada waa kugu soo dhaweyn doonaa waana kugu casiban doonaa
marka waxaan ku leeyahay soo dhawow gaba furan baan kugu soo dhaweynaynaa sidana saa u ballan qaado weeyaane waa kugu soo dhaweynaynaa degmadaan anigu hadda ka ahay maayirka waa ninkii iskuullada ka dhisay xamaas waa ninkii ka dhisay kulmiye waa ninkii ka dhisay aid isagoo u shaqaynaya waxqabadka uu caafimaadka ka qabtayna waa la ogyahay gobolka soo dhoweyntiisa waa nin reer ceergaabaa gaafaadhi waxaanu leenahay wasiir gobolkaagii gobolkii awowayaasha halkii aynu dhammaanteen ka soo jeednay aabbiyo hooyoba ku soo dhowow dee lagu oran maayo gobolkaagii iyo degmadaadii baa joogtaa wixii aad qabatayna markii aad wasiirka muuse bixi ku magacaabay xanaanada xoolaha waa wasiirkii ugu horreeyey ee shaqaalo u qora taleex baran iyo meesha layaa buuhoodle wasiirka ma aha hankiisii madaxweynenimo kamuu tanaasulin ee wasiirkii waa taagan yahay maantana waa u taagan yahay waana ku taageersanay sidaana oo nugula taagan weyna magaalada Carigaabo oo magaaladaadii oo magaalada wax ka qabatay oo magaalada aad wax gashatay runtii inaad wax dambe oo fiican u qabatidna waan rajaynaynaa uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaanu halkan u taagannahay in badanna waanu soo dhaweynaynaa si kal iyo laaba isaga uu fuudda la socota ku soo dhawow gobolkaagii aad waxa ku soo dhaweynaya wasaaradda caafimaadka laamaheedii kala duwanaa waaxeedii kala duwanaa xasan gaafaad waxaanu leenahay wasiir soo dhawow gobolkaagii weeyaan gobolkaagii ku soo dhawow gacmo furan ayaan kugu soo dhawow faraxsanahay oo aanu ku soo dhaweynayno gacmo furan qalbi furan biidmillaah ardayda Africa College kana joogaraysay caafimaadka ee waxaan ku soo dhaweynaa wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo wasiirkii waxqabadka ku suntanaa aad baa wasiir wasaaradda loogu amaanay waxqabadka ballaaran ee gobolka u hayso aad baan ugu faraxsanahay makhraanti baanu ka nahay haddaan nahay gobolka aadna waa ku soo dhaweynaa ilaa Ceerigaabo oo aan maanta taagan tahay gobolkii ma dhawo bartamay baad joogtaa halkan hadallo badan baa ka baxayay jiidali iyo fuqufliye intaba waa lagu casumay wasiir waxay muujinaysaa sida ay kuugu faraxsan yihiin reer Sanaag insha Allah bidmillaahi kariimna de magacna kula baxday wasiirka waxqabad ka yiraahdeen mar labaad iyo mar saddexaad ba wasiir soo dhawow gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkiisa isagoona u mahad celiyay dadkii soo dhaweeyay gobolkii madaxdiisii degmadii madaxdeedii waxaan ku dhahdaayay isu duwayaashii madax dhaqameedkii hablihii ciidamadii ummadii oo dhamme ee gobolka joogtay ay maanta ku dhan tahay halka kan runtii annagana waa dareen aad iyo aad noogu culus ilaahayna waxaan ka rajaynayaa hawshaa ha u taagnaydeen inuu idinka saaysiiyo annaguna sidaa qalbiga noogu haysaan ee aad noo soo dhaweyseen dareenkeedaannu qaadanaynaayo waxaannu qabannay ma aha inaannu ka sii badinno uun bay noqonaysaa inaannu keliya kaga abaalgudno waxaa la ahaa nina korkiisa biyo kama dhowro waa gurigaygii waa gobolkaygii weliba Ceergaabo waa magaaladaydii gobolka magaaladan uun baan ku leeyahay dhismo marka waa magaaladaydii magaaladii aan ku guri galay yaa ku curtay waa iiga duwan tahay dhulka kale intaasi kadibna waxaa wafdidani loo gudbiyey dhanka gudaha magaalada Ceergaabo warsame kaaf Cabdirashiid Aadan Ceergaabo